murtida maanta. gacantii dhaqan baa wax dhaqda. dhaqanka guude nolosha aadanuhu waxa uu leeyahay hub iyo hab looga shaqeeyo oo looga maraxsado qaayada waxtaraane ku libirsan waxyaalaha maraxda leh kolkaasaa wixii waliba leeyihiin qaab uumiseed ama sancadeed oo looga yool gaaro haddii lagu la'aadana looga qatoobo maraxdii oo bal eegoo alaabada dhismaha falliinka qodaasha goynta qoridda qarqooridda falsamaynta xardhidda iyo wixii la aynaya jaad waliba waxa uu leeyahay af jufo qabatin ama qayrkood ka shaqayntooda u qaabsan hawraargaabtan oo ay soomaalidu macnahaas ka marisayna markii lagu mahmaahayay waxaa laga milicsaday sida dadka murtidhaarigaahi laga maqlay dhowr meelood oo ay ka mid yihiin qofka gacmihiisu ka daahirsan yihiin waxyaalaha xagga diinta nijaasada loo yaqaan oo markaas waalkiis daahirin kara si kale oo loo wariyaana waxay tahay dhaqnaanta oo loola jeedo xagga ladnaanta waxhayneed oo la leeyahay qofkii wax hayaa waalkiisna wax siin kara si kastabase ha loo wariye wixii ay ku baxday waxaa looga deeqtoomi karaa dulucdeeda noqonaysa qofka markii ay aadminimadiisa awooddiisa iyo asluubtiisuba suubanaadaan in laga rajayn karo inuu wanaajiyo hawshii ama arrintii kaste loo dirsado hawraartuna waxay la halmaashaa lana duluc hoorsataa kuwii ahaa wadaantii reerkeedii gabtay reer kale ma waraabiso ama haantii ciddeedii ka daadisay cid kale uma celiso iyo naftigabe naf kale ma gargaaro gacantii dhaqan baa wax dhaqda haddii aan ka qiyaas qaadanno murtidan meesha ku qarsoon oon ku qaadaa dhigno arrimaha nolosha bulshada sare u qaadi kara qaran waxaa ka shaqayn kara dhaqaalihiisa kordhin kara qawaaniintiisa dhowri kara ee dhaqan gelin kara ee daacad u noqon kara qofkii ay qalbigiisa ku daabacan tahay waddaniyadii oo aqoontiisu gaarsiisan tahay qaayadeeda oo kii siyaasi ahi inta aanay tiis qalloocani la toosnaanoo uusan ku seetayn horu socoshadii bulshadiisa kii ganacsade ahina uusan ganacsigiisa sirgelinoo badeecada loo dhibaataysan yahay dadka ku haadsanoo qiimaha uga xaq darraysan asii kii maamul xoolo dadweyne loo xil saaraa inta uusan hunguri darraynoo xatooyo ku qaadan haddii kii waliba ka fiirsado cirib darrada waxa uu ku tillaabsanayo iyo uqubada if iyo aakhiraba uga imanaysa waxaa la hubaa inay waddaniyadiisu dhowrsanaanayso shaqadiisuna ay horumarinta bulshada ka qayb qaadanayso garse waa loo islaane sow ma arkaysid tusaalooyinka laysisiinayo hanuuninta laysgaarsiinayo tababarada isdaba jooga iyo mudnaanta waxbaristiyo shaqada oo loo wada sinaaday intaase looga socdo in qofka soomaaligaahi isku kalsoonaado markaase uu ku filaanayo naftiisiyo bulshadiisaba tilmaantiisuna noqonayso gacantii dhaqan baa wax dhaqda waa dhawaaqa murtide